جنينتي السكادة لكن واحد إلى عبار فركة كوا وحبرشة عبار فركة وحوايه markii geedi dheer yahayaan dheer loo socdo oo la daalo oo awrtu daasho oo dadku daalaan oo inta rarka awrta laga dajiyo la nasto wax la cuno la karsado kadib iyadoo la yahay dad xayi ah oo maaragtay socon kara markaas la socdo marka anu waxaan ilaa cabaar fur hal qaato jaamacadda Safana iyo ardaydeeda halkan ku qalin bedelinaysa iyo guud ahaan ardadaba waan u mahadcelinayaa waxyaalaha ugu mahadcelinaya waxaa ka mid ah aniga Safana waa maqlayay ama waa arkay boorarkeeda iyo meelaha qoraaladan ku arkay laakiin intaan halkan joogay waxyaalihii ama aan dhageysanay ama la socday waxaa ka mid ah sida ay u gaartay meelo kala duwan ay u gaartay adeegu runtii in aqoon muasaso ama goob tacliimeed in la furo in horta lagu fikiro lagu riyoodo waa adag tahay haddana markii lagu riyoodo in la hirgeliyo oo la shaqo geliyo aad bay haddana usii adag tahay waxay gaarsiiyeen buulamareer oo waddankeena hal jaamacad qofka ka imaanaya min aqsa ila adna wuxuu imaanaya hal jaamacad u imaanaya meeshan ardayga laakiin ardaydii buulamareer loo geeyey iyo meelo kala duwan meeshooda waxbarasho ku helay aad bay horta ay u tahay farxad inay adeeg wanaagsan inay sameeyeen ama hawl wanaagsan ay qabteen waxaan idin leeyahay meesha ka sii wada waa intaas oo la sii tayeeyo oo loo sii dhawaado xaqa iyo wanaag loo sii dhawaado inta haddii aan ka gudbo Soomaalidu waxay tiraa aaw cir lagu hoos aweeyo in waxba la barto in jaamacada la dhigto in markii laga soo baxo shaqo la helo waxaas dhan waxay ila tahay waxay ku xiran tahay nabadda waxa ugu muhiimsan waxay tahay colaadii ood meel dheer ka soo laacayso in ay kaaga fududaato nabadii ood meel dhow ka soo haabanayso ilmaha annagu aan dhalayno oo ay kuwa hadda qalin jabinaya ay dhali doonaan hadda kadib ay dhali doonaan kama duwanaan doonaan ilmaha 90kii markii burburka waddanka ku dhacay la dhalay ee 30 sano gaaray qof 30 sano gaaray ama aan wax baranin ama hadduu wax bartay dhib ku soo bartay dhibkeeda leedahay waxaa aad iyo aad nasiib darro ah waddankii maanta waxaan gaarnay qarannimada Soomaaliya waxay gaartay waa yeel bay gaartay 2020ka waxaan gaaraynaa 60 sano gaaraynaa 60 jir markaan noqono qofkii 2080ka dhasha 2020ka ee asna 60 kala gaara waa waqti kale marka shidaalka aan soo saari doono la sheegayo iyo lacagta farada badan ee soo saari doono horta maxaan ku gaari doonaa goormaan gaari karnaa anaga waxaan gaari karnaa markaan anagu wax isu hambayno anagu aan walaalo noqono nabadgelyada ka shaqeyno ayaa muhiimadu ay tahay laakiin 2020 60 sano anagu gaarnay haddii hadaaya waxaa la dhahay dhalinyarada loo badiyo ayagaa u badan lacagta loo badsho shaqada loo badsho hadduu ku fikirayo fikir uusan aniga maskaxdayda waxaan weligay ku soo dhicin aabayna ku soo dhicin uu ku fikirayo oo weli uu ku fikirayo anigoo laandheero ayaa ila hadli kara laandheernimada aniga waxay ila tahay inaysan ahayn laandheernimada qabiilkayga xoog loo ballaaran oo intaas gaaraya haddaa laandheer tahay 100% ku baas imtixaanka jaamacadda ku baase ninka qabiil badan ninka qabiilkiisu ama ka xoog badan yahay ama geel fara badan leeyahay ama hanti badan fara badan leeyahay ama ganacsiga xoog u jiro oo fasalka kula dhiganaya ka dhibac iyo boonda badnow aniga saas ila taalan dheernimadu waxa waaye waxa fikradaha noocaas oo kala ah oo dadka dilay waxa ila tahay in laga gudbo ila tahay waayo annaga dadka waa la walaaleeyay horaa loo walaaleeyay kacaanka waxyaalaha uu qabto waxaa ka mid ah 22 sano dadka oo la walaaleeyay markaan yara waxaa maqli jiray warqadaha aan dhageysan aan warqad ma diri karin markaas laakiin waxaa maqli jiray warqadan waxay ka timid walaalkaaga Berberi jooga warqadan waxay ka timid walaalkaaga Kismaayo jooga warqadan waxay ka timid walaalkaaga Baydhabo jooga warqadan raadi Muqdisho markaan ka dhageysay wali akhrinayo waxaan igu naqshanaysnay qofka meelaha aanan tagin walaalkay ah inuu walaalkay yahay oo aanan laakiin wali is arkin saas ila taaniga marka Kismaayo maqlaayo walaalkay hadda reer Jubbaland ka yimid reer Jubbaland way buunbuuninayaan inay xataa aniga iga leeyihiin oo reer Hiiraan ah laakiin anigu waxaan aaminsanahay markaan maqlaayo walaalkaaga jooga halkaas aniga si rasmi ah waan ogaa gabaygii tamashlaha ee Hadraawi tiriyay dalka dalxiiska uu ka sheegayay ayaa uu Kismaayo ku soo gabagabeeyay kiiba dhagahayga wali markuu ku soo dhacay sidii maartay maskaxdayda iyo qalbigayga ugu naqshadaysna
hadraawi wuxuu yidhi tamashlaha inaad daawataa sowdanta maaha deebliya wajaaliya barbare kac iska soo daawo taleexdii daraawiishta maadaarihii aragtid biya kulule labadiisa dacal ku soo mayro geel soo darmaday cabidu aqweelka ii daradhe beledweyne webiga dulmara daadka badan dheeho daruur soo dhawaatay qabow aan ku dilahaynin ku dakey haddaad jawhar timid waa dan raaxadiye kalluun duban digaag shiilan oo daawo lagu shiilay oo deeq lagu siinayaa xamar usoo doono diyaaradaha dheereeya ee dunida meereysta gegiday diyaarka ugu tahay guux aan damine aroortii kismaayo uga dul oo ku dega waamo dad walaalaha oo ku jecel ubaxa kuu daadsho ha degdegina muuska isdulyaal daymo iyo raaxo waxaad dunida kala qaybisay webiga soo daawo wixii aan waqtigaas maqlaayay aniga nasiib uma yeelan inaan intaas kismaayo tago goormaa tegi doontaa 2017 baan tegay sidii uu ahaa gabaygu dad walaalaha oo ku jecel ubaxa kuu daadsho waa la ii daadshay waa la soo dhaweeyey jaamacadda kismaayo lecture ka soo jeediyey marka dadku waa sidaas marka waxaan rabaa inaan anigu kusoo gabagayo afkii iyo wixii aan ka hadli lahaa inaan fursad helay marmalaynaa laakiin waxa aan rabay inaan uga faa'iidaysto fursaddan waxay tahay waxa aan baran karno barsoorka daa wuxuu lahaa alif ba baa idin bilaabatay alif ba ilaa yaa ismeen gaari doonaa horta haddaanan aanaan fahmin inaan nabadgelyo ku wada noolaano taqabul aniga dad qabasho ana aan ku aqbalo haddaad kiri tiraana kacan ku dhaha waxba ma tarayso anaa saana anaa hebelo anaa dadka haddii aan ka gudbno fikirka annaga weligan idin hogaamin jirnay annaga caqli idiin ahayn annagaasaani ahayn waxaas waa aniga awoowayaashay xilligoodii ba ahayd xilligii geela kala dhici jira marka xilligan inaan nira anoo laandheera ah sidaas dama korofo qabsano xamar anoo jooga waxaas ma suurtoobeen anigu waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo dagaal waa 6 xaraf nabadna waa 5 xaraf labada hore iyo labada hore isu tuur saddexda dambe iyo saddex dambe isu tuur ga-aa soo horeysa ga bis halka xaraf oo dheeraadka oo nabad laga dheeryahay waa ga-da waa gumaad kow ka bilow ya gumaad baa imaanaya gumaad marka ga-daas waxay la timid gumaad waxay la timid geel la kala dhacay waxay la timid guul darro adigu wixii ga oo dhan kasoo fakay oo dhibaato oo dhan oo ga-daas soo hartay xaaladaas marka waxaa waaye waa xaalad aada iyo aad u dhibaato badan marka jaamacadda Safana iyo ardadeeda waxaan uga fadhinaa in ay wax ka dalka in halkan laga abuuro shucuur daaqiliya halkan dadka in laga walaaleeyo inay dadku isu soo carfaan inay dadku qabiilka waxa la yiraahdo waa wax adooraha xun waaye oo sida xun loo isticmaalayo waxa rasmiga ah oo annagana deeqi kara oo annaga dadkoo dhan muqdisho kaliya ma deeqi karto waa sax laakiin markaan galmudug niraahdo batroolaa la sheegaya horta biyaha dhulka hoostooda haddaan ka soo bixino oo hal abuurka sheegaya annaga oo beelihii geela kala dhacayay ay isu yimaadaan oo 5 beel oo meesha wada 6 beel oo jaamacadaha ka wada baxay isu yimaadaan oo ay sameeyaan 5 ceel qodaan oo dhul weyn maartay yaanyo iyo liin iyo qare iyo ku dhigaan oo kuwii webiga ka fogaayeen ayaga oo webiga naga leexday dhaymo qoladii webiga deganeed reer hiiraan iyo inay u soo dhoofiyaan moos oo ka yimid gaalkacyo iyo ka yimid in la keeno maartay beledweyne la keeno jawhar la keeno taas waa mid aan ka sugayno waana mid rasmiga afka ayaan rabaa marka afgaab waxaa ka liita aflaawe hadda afgaabnimada gabartayda oo yara oo ikraan ilaaha ay timid anoo afka aad u salowsan waxay awalna la yaabanaa qolo diaspora ah oo inta yimideen diaspora aan dhihin diaspora ma fiicna qurba joog aan dhahno كلمة يودي أو أدون كل فرقتين واي ممتاز قاموس كمورد كفيري كرتان البعلبك يروح بعلاك ومن البعلاك أقولان مركا واحد هذا أبو واحد بناه جوجه إري دبكوس أو الله كوده إري دبكوس بريدي بعرفتي واحد بناك واحد جوجه إري دبكوس مركا أنا مركا أيضا لا كان الله يوم محتوى كلاغان هذا دباتا مركا عنقاس marka xamar jooga oo yarka ah oo saas ah oo iyadu aysan xoog helin dhalinyarada marka oo walaalaha ah oo wax bartay jaamacadaha ee guryaha jooga wax kale ma ahna shaqada ku darsadeeno in guryaha in afka guryaha ka dhigaan kula dhashay walaalahood dhaleen guryaha lagu soo cesho aqoonta lagu soo cesho haddii kale waxa imaanaysa sidii qolyihii qurba joogta ilmood inaan noqono oo u dhahayo hooyo caana ma taasha
markaasaa wiilkii baa ku qoslay oo isaga isdhahay gabadhaad xooga ka af soomaali baanta adiga qalada ku hadashay caana ma yaashaadhe isagaaba saas uga saxsan marka waxaan rabaa marka fariintan uga faa'iidayso anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta soomaaliyeed way idin furan tahay afka cilmi baaris afka soomaaliga waxa ugu qanisan waaye sababta waxa adduunka lagama helo adduunka waxa la yaabaysaa inaysan af haysan waxaad ku ogaanaysaa rain erga rain fiir intaas oo eray 5 xaraf oo shaqal u dhaxaynin ama reason oo 6 xaraf 7 xaraf oo shaqal u dhaxaynin waxaas af ma noqon karaan afkeena waa shaqal shibana israacsan wuxuu leeyahay hab loo hingaadiyo wuxuu leeyahay hab uu qofka xataa ajnabiga aan u bari karno macallin oo biology chemistry oo masar u aaday jeenaha waxaan ku dhahay niyo adoon hal jeenaysa oo afka Soomaaliya ku gabiyaaya adoon ma soo saarin xamar u soo noqonin marka waxaan rabnaa marka inaan anaga aan ka sii faa'iideysano afkeenaas marka iyo qiimaha uu leeyahay waa waxa aan kaliya wax ku kala isku fahansiin hadaba English kuma wada hadlayno iyo Carabi xafladda markaan hormuud joogno ama daabshig joognana maanta dhan hadaad joogto luqadda rabto wax ku soo bare war adiga niyo EVC igu shubay 200 EC iyo EV account-kay waxaan ku wada hadlayno isku fahmino Soomaali afka Soomaaliga marka inaan xoog saarno inuusan noqon guriyihiina inaan geyno ma aragtay uu noqdo tiirarka ugu xoogan oo afka uu noqdo cilmi baarista afkana akademiyadu waxay la tahay diyaar bay la tahay waayo afka Soomaaliga fiiri hadaad horay u akhriso iyo hadaad gadaal u akhriso luqado kale leeyahay daad fiiri daad hadaad daad akhriso gadaal ka soo akhri waa daad duud fiiri gadaal ka soo akhri waa duud dood fiiri gadaal iyo hore ka soo akhri waa dood diid fiiri hore iyo gadaal ka soo akhri waa diid waa erey gadaal iyo sida arsaanyada baasha la yiraahdo uu u soconaa marka waa wax aad u fudud waxa kale oo leeyahay afka Soomaaliga la yaab ah fiiri hadaad xiir dhahdo xiir uu noqonaa lacag gacal uu noqonaa gar rag uu noqonaa bah hab uu noqonaa intaas oo milyan oo eray oo hadaad gadaal ka soo akhriso erey kale noqonaa uu leeyahay marka min fadlikum waa xoolaheeni waa hantideeni waa waxa anaga lahayn ilmaha anaga aan dhali doono xataa been sulb wa taraa'ib ku jira wax nasaas ay musugeen hadii kale wallahi waxay noqonaysaa ilma wada curyaana dad wada curyaana oo af lahayn oo dhaqan lahayn waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.